أحمد عقيرة قدوميها عصوب قبل كهود أحمد ياسين محمد قدومية أحمد عقيرة وعقبت كيسي وحكو سنتين بوغا عينو حينو لقى قريب وكو سنتين كفوغان ماي waxaan leeyahay Axmed Yaasiin noqoduguna mid buuga barbaryaala aan ka qoraa hadii aan leeyahay wax qabadkiisii anigoo ku hadlaya afka isduweesha gobolka Hawd hay'adaha gobolku hore may u lahayn inay isugu yimaadaan shirar iyo kulamo ay ku tashadaan intii uu yimi barasaabka gobolka Hawd Axmed Cigeere ayuu bilaabay kulamadaasi waxaan rajaynayaa inaad halkaa ka sii wadi doonto adigu halkaa ka sii amaqaad doonto maanta waxaan nala joogaa ninaydan weli sheegin ninka waxa la yiraahdo waa nin suxufi ah ninka waxoogaad ka sheegtay baa waxoogaad ka sheegtay waa idaacad khatara waxaan leenahay waxoogaad ka sheegtay taar TV uu inala joogay waa bas dhalinyarada Soomaaligu ku hadlo aad bay imika u xiiseeyaan bal waxoogaad ka sheegtay waa halkaa fadhiya maanta cidii aan gabayn ha barato nadigana soo dhaweynayna waxaan filayaa inaad wax qurux badan naga sheegi doonto haddaan ayaa dhegeysan doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barisaabkeeni hore Axmed Cigeere iyo barisaabkeena cusub Axmed Yaasiin Maxamed Faarax haddaan u galo barisaabkeeni hore Axmed Cigeere waxa jirtay waqtigii aynu joognay aan joogay wasaaradda waxbarashada ee gudoomiyaha waxbarashada ahaa barisaab hore Axmed Cigeere ka horeeyay baa jiray magaalada Gumar la yiraahdo ayaa nin lagu dilay qaca ku dhigliyo sii socda ayaa barisaabka bariga joogay waxa uu yiri yaan laga daba tagin laba talaabo wadada xaga Itoobiya ugu sii gudbin waxaan Axmed Cigeere aad iyo aad ugu xasuustaa isagoo horumarka degmada iyo gobolka doonaya inuu u tagay meesha la higlilay barisaab Axmed Cigeere wuxuu la saaxiib ahaa dawladda Soomaaliland iyo Itoobiya madaxweynaha Itoobiya Mustafa Cagjar saaxiib u lahaa halkan hadda waxa weeyaan dawladda Soomaaliland waa taa u soo igmatay xilka ay u soo igmatay marka waxaan u baahanahay Axmed Yaasiin marka horta waan ku soo dhaweynaynaa heer gobol iyo heer degmo si fiican oo qurux badan baan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawow dalkaaga iyo deegaankaaga waxaan isaga ka rajaynayaa Axmed Yaasiin waxaan qabaa inuu Cigeere dheeraan doono saddex buu ka soo jeedaa isagu wuxuu ka soo jeedaa Djibouti wuxuu ka soo jeedaa Itoobiya wuxuu ka soo jeedaa Soomaaliland saddexdaa waji waxaan kaaga baahanahay horumarkii aad ka soo qaban lahayd aba wakiilada ugu soo korin lahayd gobolka Hawd ayaan kaaga fadhinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inaga mudnaa karaamo iyo sharaf inaga mudnaa Axmed Cigeere aynu ku sii sagootayno uguna sii ducaynayno kuna soo dhaweynayno Axmed Yaasiin Maxamed Faarax oo isaguna inoo soo adilmayo aynu isagana una ducaynayno soona dhaweynayno kolkaan intaa dhaafo wax mid walba waynu ducaynaynaa midna waan soo dhaweynaynaa midna waan sii sagootaynaa lana sii dardaarmaynaa waxaana daba Axmed haddaan waxoogaa ka soo qaato walaalayaal maalintii u horeysay inta raalliga maalintii u horeysay ee Axmed Cigeere uu inoo yimid hadalkii ugu horeeyay uu ku furay waxa uu kamid ahaa hayga filina gobolka Hawdow dhakaliya hayga filina waxyaalaha laga xasuusan karo ee taariikhda leh taasoo aynu qaadanayno inuu cadaalad hadii uu sheegay kuna cadaaladiina ku suntanaaday dhakaliya hayga filina labada dhagood inuu igu soo talagalay buu waa qodobka labaad wuxuu Axmed Cigeere gudoomiyihii inala soo degay inala qaybsaday hadii Ilaahay yiraahdo waxa la wixii aynu mudanahay inala qaybsado haday biyatahay haday baatahay una soo degay inuu gobolkiisa xaal ogaado weeyaan kolka oo imika caruurtiisii nala joogto dumarkiisii kuwa mashxarada ay kamid yihiin ee soo degay waxa kamid ah qodobka saddexaad ahaa walaalayaal inuu xafiis walba aroortii soo dulmeeri jiray bal xafiiska shaqaynaya
iyo xafiiska caaradu ku dhalatay si uu kala ogaado uu dardargeliyo waxa kale oo Axmed Cigayare aynu ku xasuusanaynaa inuu ahaa gudoomiyihii ilaa gobolka ilaa dawladda aynu walaalaha Itoobiya tagay isaga oo u tagaya labada dawladood ee walaalaha ah jaarka wada shaqayn fiican inay yeeshaan higlalay buu tagay qudacboos buu tagay laanqayr buu tagay isaga oo uga jeeday in aan wax tala xumaanay labada dawladood dhaxdooda soo galin ayuu uga jeedo saa u tagay waxa kale oo walaalayaal aynu ku xusaynaa oo qodobka shanaada in afarta degmada masaajidada ku jiray oo Axmed Cigayare mid walba ka soo khudbadeeyay kana soo duceeyay khudbadaha ka aqriijin culimo ahaa tafsiirka intaan aqreenana sida uu noo fadhiyo oo xaqana uu nin culimo oo qiimo badan oo ka ahaa waxa kale oo Axmed Cigayare ku xusaynaa oo isna qodobka lixaada inuu cidii bugta ee gobolka Hawdaba soo booqanayay cidii hadii Ilaahay bugtana janaasada nagula tukanayay waxa kale oo walaalayaal kamid ahaa inuu xabaalaha magaalada soo gaadhay ee magaalada dhexdeeda Axmed Cigayare in mid walba intii lagu gooyo oo ku tala jiray oo imika lagankii iyo xabaalihi ku haystul yaalayihiin oo damacsanaa inuu kuwaana hadii la yiraahdo inuu iska asturo walaalayaal waxa kale oo aan leenahay hadii aanu gobolka Hawdnahay hadii magaalo lagaaga keeno nin wanaagsan waxaad moodaa dadkii ninkaas ka yimid dhammaan inay wada fiicnaayeen meesha caynada la yiraahdo laba nin baa nooga yimid Sheekh Ibrahim Xaaji Xasan Ali iyo Axmed Cigayare qiimaha labada aanu ka baranay Sheekh Ibrahim imika meel uu joogo Allaha nabadgeliyo waxaan leenahay waxaan u haysanaa meesha caynada la yiraahdaa in dadkeedu sidan u wada fiican yahay uma u haysanaa waxaana daba imikana u gudbayaa walaalayaal Axmed horta waxaan leenahay Axmedow waxaanu kugu sii sagootiyaynaa khaliilii fa bu'da daari laysa bimaanicin Axmed Cigayare gudoomiyaha cusub ee gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed gudoomiye Axmed Cigayare waxqabadkiisii wuxuu ku suntan yahay buugga aynu hayno ee laga qoray buu ku suntan yahay ku fogaan maayo waxaan leeyahay Axmed Yaasiin noqo aduguna mid buug barbar yaala aanu ka qoraa hadii la yiraahdo waxqabadkiisii anigoo ku hadlaya afka isduweesha gobolka Hawd hay'adaha gobolku hore may u lahayn inay isugu yimaadaan shirar iyo kulamo ay ku tashadaan intii uu yimi barasaabka gobolka Hawd Axmed Cigayare ayuu bilaabay kulamadaasi waxaan rajaynayaa inaad halkaa ka sii wadi doonto adigu halkaa ka sii amaqaad doonto maanta waxaan nala joogaa ninaydan weli sheegin ninka waxa la yiraahdo waa nin suxufi ah ninka waxoogaad ka sheegtay waa idaacad khatara waxaan leenahay waxoogaad ka sheegtay Taar TV uu inala joogay waa bas dhalinyaradu Soomaaligu ku hadlo aad bay imika u xiiseeyaan bal waxoogaad ka sheegtay waa halka fadhiya maanta cidii aan garanay ha barato nadigana soo dhaweynaa waxaan filayaa inaad wax qurux badan naga sheegi doonto haddaan ayaa dhegeysan doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isbitaalka guud ee Balgowde nagu soo booqday maanta telefishinkan Taar TV aad baan ugu mahadnaqaynaa booqashadiina ku timaadeen gobolkan Allahumma salli ala Muhammad xaaladaha u badan xagga arrimaha caafimaadka imika heeganka lagu jira waxa weeye xanuunkan la yiraahdo 20 midla ayaa lagu jira heegan 20 midla markii shan COVID-19 mu noqonayo Soomaalihan markii uu bedelo in loo bedelo wanaagsan 20 ka midla hadda la yiraahdo Allahumma salli ala Muhammad wuxuu leeyahay xuduud dheer buu ayuu gobolku leeyahay deegaamada Itoobiya aynu xadka leenahay dheer marka waxa weeye ilaa balacbana meesha la yiraahdo ilaa iyo Allahumma salli ala qowbulo leh
ayuu sidaa u taxan yahay xadku sidaa u taxan yahay xadku sidaa u taxan yahay dabeedna check points baanu ka sameynaa ama entry points meelaha laga soo galo in lagu xakameeyo xanuunkan oo lagu jeegareeyo dadka ka imanaya Ethiopia qarqashe way isu furan yihiin oo adeega caafimaad waxay usoo doontaan dhinaca Somaliland tuulooyinkan qaaxa ku teedsan oo dhan waxa weeye cisdaa ama caafimaadka leeyahay ma jiro ambalaasyadooda ka xarshina wuxuu keenaa waxa uu soo rifaargareeyaa balacbanay kan laanqeydkii jiidna wuxuu soo rifaargareeyaa bilgwadle اللهم صل على سيدنا كلا سور في القريب عاكين يلا حنون كان طبعا مدلا تميني سوحوي أنا وحنا هينا إلى نكبر نحن تس كوقاتنا اللهم صل على محمد وحي كلا أنت هذا بسيسن وحن إمكان أنك سوينا حوي الجسم رابرتس waxa la yiraahdo lagu qaaday dhiiga loo keeno si hadii marka raabtaska aan qofka galino dhiigiisa wuxuu nagu sheegayaa in uu yahay calaamadii corona uu leeyahay suspect xoog loo muujinaya raabtasku dabeedna marka aad inta ka hesho cadeynta oo gudbinaysa qofka rifee hargeysa marka lagu baaraya shaybaarka weyna uu yaalaha daraado sida kale xaaladda guud waa fiican tahay saa waqtiyadan waxay ma jiray shubano iyo wax noocaas oo biyaha iyo waxa keenaan ilaahay inuu keenin waa 100% aad bay maanta u fiican yahay caafimaadka guud way isduway waxaad ka warantaa bahasha hoose bahasha hoose halkan balacbane oo kale ma spot ku cunay dad waxa weeye waqtiga kuleelku soo baxa iminka laba caruur iyo wuxuu cunay iyo islaam buu cunay wal soo qaaday kuleelku soo baxay balacbana ugu tagay wala daweeyay aad buu fiican ciido ma dhaban laakiin waqtiyada kuleelka xaaladdu ay isbedeshay kaliishan ay soo baxaa baadku oo iska jiro caadi weeye insha Allah taala wad ma santaysdu aad baa mahadsantahay